mar haddii China tareemadii guryaha dhexdooda marayaan Pakistan waxay tiri waxaas oo dhan uma baahninba oo iyadoo waa dhinaca kale ka egtaa baaskiilku wuxuu ka yahay gaadiidka ugu wanaagsan ee qof kasta heli karo qof kastaana wadan karo aadna loogu kalsoon yahay dalka Pakistan meelo badan oo kamid ah kaaga daranayna waxaan aragnaa baaskiil hal qof saaran yahay ama laba qof isla saaran yihiin baaskiil xaaskii oo dhan saaran yahay laga arkaa dalka Pakistan qoyskii oo dhan ninkii iyo marwadiisii iyo caruurintii ay dhaleen baaskiilkii bay fuulayaan dhammaan hal baa la wada fuuli karaa baaskiilku waxaan yara dhoobanay labada lugood u leh marba haddii loogu talagalay in qoysku fuulo farsamada la sii casriyeynaya baaskiilka mid kale lagu daba xidhaya mid kale lagu laxaamidaya sibaa loo cajiibaa loo sameynaya oo aan laga garanaynin laga yaabaa in laba lugood uu leeyahay oo lugu horeysa iyo lugu dambaysa uu leeyahay taayir haddaan idhaahdo deetana reerkii oo dhanna saaran yihiin way markaas haraysu qoyskii qaadaya oo garanayba siday tusaale ahaan oo kale hadda gaadiid ahaan u isticmaalayaan siday ugu noolaanayaan ee ay ama jidadkii u marayaan ama ugu adeeganayaan maxay isticmaalayaan jidkii horta waa uu roonyeyda oo wadadii saxmadii faraha badneed baaba yaraanayso dee uu ka yariyay baabuurkii baaskiilkii moogtahay waxaa kaloo la yaaba bahal bay kusii daba xidhayaan qalab bay kusii daba xidhayaan marka qalabkaasi wuxuu u qaadayaa adeegoodii hadday caws tahay hadday caleen tahay hadday agab kale magaalada ka soo iibsadeen hadday tahay khudaartoodii iyo alaabadoodii hadday tahay wax kasta hadday guurayaan oo alaabo ku qaadanayaan wixii ay rabaan inay ku qaataanna alaabtaa dambe la jiidaya lagu rarayaa reerkiisaasuu ku socdaa gaasii biyo toona kama doono magaaladiina ciriirigu waa ka xoogaa waa hoos buu u dhacayaa inkastoo weli la sheegay inay ka mid yihiin Pakistan iyo India iyo Egypt iyo meelaha adduunka ugu saxmadda badan leh mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin ba idin leenahay meel kasta aad joogtaan ba cawaysin wacan oo wanaagsan weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii cawayska Washington markana ku soo dhawaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waana qaybtii u dambeysay waraysi wariyahayaga Sagaal Mustafa Xasan Nuur ay magaalada Hargeysa kula yeelatay alfanaan Maxamed Siciid Cabdi Biike aadii kala baxo Sagaal iyo waliba Biike aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Siciid Cabdi Biike inagoo wali isla kamanka ku jirna Maxamed Siciidow fanaaniinta markan heesaaga ka nimaadno aad habeenkana caawa bal mid kamid